like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro. haddii aad nagu cusubtaan ay loobin inaad subscribe saarto. maanta waxaan ka hadlaynaa muuqaal cilmi nafsi ah. waxaan ka hadlaynaa faraha iyo farqiga u dhexeeya iyo dabeecadaha dadku ay leeyihiin dadka farahooda isku mid maaha. marka dadka waxaan u kala qaybinaynaa 3 qaybood: type A, B iyo C. A marka waxay noqonaysaa farta faraantiga ayaa ka dheer sidaad aragto farta suulka xigta. B na waxay noqonaysaa farta suulka xigta ayaa ka dheer farta faraantiga. C na waa ay siman yihiin sidaad muuqaalkaba ku aragto. waxaan rajaynaynaa marka dadkan dabeecadaha ay leeyihiin iyo sida ay u kala duwan yihiin ayaan muuqaalkan ku eegi doonaa. wax badanna waa uu ku anfici doonaa. like saar muuqaalka haddii aadan hore u soo saarin. haddii aad nagu cusubtahay loobin inaad subscribe saarto. type A ayaan ku bilaabaynaa. marka type A waa noo ahayd marka farta faraantiga ay ka dheer tahay farta suulka xigta sida muuqaalka aad ku aragto. gabadhan farteeda faraantiga ayaa ka dheer farta suulka xigta. dabeecadaha dadkani ay leeyihiin marka ayaan si gooni ah u eegi doonaa insha Allah. dabeecadaha dadka haddii farta faraantiga ay ka dheer tahay farta suulka xigta, dadkaas inta badan waa dad hadal aftahana ah, soo jiidasho badan, dabeecadoodu fiican tahay, muuqaal ahaanna qurux badan. xitaa caruurta la dhashay dadkaasi iyaga inta badan ka qurux. dabeecadaha dadkani sidoo kale ay leeyihiin waxay tahay lacag badan way soo gashaa, laakiin dhibaatada ay qabaan waxay tahay wax meel ma dhigtaan. bixintooda ayaa badan, maqaayad gelistooduna way badan tahay haddii farta faraantiga ay ka dheer tahay farta suulka xigta. type B markaan fiirinayno waxa waaye farta suulka xigta ayaa ka dheer farta faraantiga. dadkan iyagana dabeecado gooni ay leeyihiin sida hadda muuqaalkan aad ka aragto. yarkan farta suulka xigta ayaa ka dheer farta faraantiga. marka dabeecadaha dadkan marka haddii marka farta suulka xigta ay ka dheer tahay farta faraantiga, dadka noocaasa waxaa badan horta kalsoonidooda way badan tahay. sidoo kale waa dad aad loo xushmeeyo, aad loo qadariyo. dhibaatada kale waxay waaye dadkani waxay jecel yihiin kelinimada. mawduucyada oo dadka badan ay ka hadlaan ma jecla, kelinimada ay jecel yihiin. sidoo kale waxay jecel yihiin inay laba qof si fiican ugu sheekeeyaan inta ay dad badan u sheekay lahaayeen. type C marka waa marka ay isleegyihiin farta faraantiga iyo farta suulka xigta markay isleegyihiin. dadkan iyagana dabeecado gooni ah ayay leeyihiin. dadkii hore way ka duwanaan doonaan sida gabadhan hadda aragto farteeda faraantiga iyo farta suulka xigta way isleegyihiin. xaqiiqatan way isleegyihiin. marka hore waxaanu soo marnay haddii farta faraantiga ay dheer tahay iyo haddii farta suulka xigta ay dheer tahay. dadka marka noocaan ah inta badan dadkani waa dad nabadda jecel, dagaalka neceb, qalalaasaha neceb, ka fogaada. ma ahan xataa haddii marka xabad dhacdo dadka u cararo oo kale xataa ma ahan. sidoo kale dadkani waxay ku fiican yihiin jacaylka iyo daacadnimada, aaday ugu fiican yihiin. marka dadka haddii farta faraantiga iyo farta suulka xigta ay siman yihiin, qofkaasi waa qof la jeclaan karo, lagu kalsoonaan karo. waxaan rajaynayaa marka maanta kadib farahaaga inaad fiiriso nooca aad tahana aad ogaan doonto insha Allah. like saar muuqaalka si saaxiibo badan u gaaro haddii aadan hore like soo saarin. haddii aad nagu cusubtaan ay loobin inaad subscribe saarto si saaxiibo badan nagu soo biiraan.